magaalada Hargeysa xalay waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay isla markaana barnaamij loogu magac daray raadiyo rajo isla markaana lagu soo bandhigay sooyaalkii halgankii iyo waliba suugaantii Mujaahid Saciid Maxamuud Xuseen Saciid Indhoole. munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaasha xisbiyada macaaridka u ciidiya wadani afayeenka xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye xubna ka tirsan wasiirada iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay Mujaahid Saciid Maxamuud Xuseen Saciid Indhoole iyo waliba qaar ka mid ah halgamayaashii ururka SNM. Soomaaliland ha noolaato martida soo dhaweysay halka tibana sharaftana ilaahay cimrigooda ha raajiyo. annagu talnimadii ma rabnaa xiriirkii baan rabnaa waxaa burcana lagu ballan qaaday maalintii la goosanayay 18 oday baa yimi oo ugu weyn yahay odaygii reer Fuq Maxamed ugu weynaa iyo kii Quraysh ugu weynaa iyo kii Salmaan Cabdulla ugu weynaa waxa la yiraahdaa halkii wada gelisay darad iyo haween colaad bay noo hayaane maxaad naga tagaysaan maanta lawa goosateen abtirsiye meeshii noqotay Cabdiraxmaan wuxuu yiri Cabdiraxmaan sida hilibka loo dhaqaysanaya boodada iga daa meeshu ma ahane walaalayaal waxaan idinku asuubaynaa agaasimayaal xubin sharafeed golaha guurtiga xubin sharafeed golaha kala iyo cashuur dhaaf tolnimadii gobashay wadaarta gobashayna ma helin cashuur dhaaf ma helin ciyaartoona halkii dhiigi waa bixinay ciyaartii ka idin taala 1700 qof fardun taqaadaysa qiyaas Saciid halkaas la keen Saciid oo dhaawaca oo jirkiisa nimka isku yaala quruxda la arkaysa waxa furqdoonka mudamaha furqdoon Saciid waa dhaawaci soo gaaray meel laga xubnood la saaro oo jirkiisa kamid ah oo Saciid aan firir ka saarin ma jirin Saciid indhiisa waxaanu ka saarnay qoriyo dhaadheer oo saa ugu taagan saa ugu takhalan baan ka soo siibsiibnay indhaha oo beelay ummadan oo SNM la halgamaysay oo dhimanaysay oo faranka ugu horeeya ku jiray oo ka bilaabma from Puntland ilaa iyo Kismaayo dadkan inaga soo horjeeday askarta in wax loo sheego oo lagu yiraahdo war annagu idinka jeedno idinka idinma dagaalamayno marka maxamed siyaad bare marba propaganda u fidanaya mar wuxuu leeyahay waa xabashi mar wuxuu leeyahay waxa ka horjeedan qarannimadii mar Soomaalidu ka horjeedaa buu leeyahay tiisi loo jabiyo ayaa waxa la doonay in dadka inaga soo horjeeda la helo cid doonaba ha ahaadee ciidamada ku jirta. sidoo kale waxa halkaasi igna hadal ka soo jeediyay isla markaana ka warramay ahmiyadda bandhigani gudoomiyaha xisbiga macaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo waliba gudoomiyaha xisbiga macaaridka ah ee UCID Engineer Faysal Ali Xuseen Faysal Ali Waraabe iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Habib. inaan munaasabada ka soo qayb galo oo ku soo bandhigayo Saciid Mujaahid Saciid oo shalay ahaa Saciid Daale maanta inay Saciid Indhoole sababta ku indhabeelayna way caddahay oo halgan dadweynuhu ku jiray waxaa munaasabadani marag furtay halgankii SNM inaanu ku koobnayn gobolladii waqooyi ee Soomaaliya ama Somaliland maanta marka waxa weeye baawurkii aqrigu gadan oo ka taaya beero baawurka u baahan oo baawurkii anagiyo qoladii kulmiye wadani waxaan ku tashaynaa kii cusbaa ku yiibin hadda la yiraahdo يقولي ولا هذا هل كيف بدي يقولي لكن أنا يوصيه ما كان تكفي قصنا محي هذه الدولة تاريخ دولي كويتي أنا مهاتي ما كان الرئيس صار الرئيس الكيريكي سنة ديوش هي جولي تجاه كل مشاكل طلع ولا خير سيء المتعلم دلي ما نتسامح طلع دار عصر كي كقيم عتيبان مهاتي بيجي gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo heeso uu curiyay abwaan Mujaahid Saciid Maxamuud Xuseen Saciid Indhoole. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.